muddo ka badan 25 sano ah ayaa shirkadda diyuuradaha Djibouti Airlines waxa ay soo caga dhigtay garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyadoo bilowday duulimaad toos ah oo ay shacabka labada dal ugu kala gooshayaan Djibouti iyo Soomaaliya. Wariyahayaga Sugaal Macalin Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya. diyaaradda Djibouti Air ayaa markii ay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka soo degatay kadib waxa lagu qabtay munaasabad kooban gudaha garoonka taa oo lagu soo dhaweynayo diyaaraddan heerka caalami ee laga leeyahay dalka Djibouti oo duulimaadyo toos ah ka bilowday gudaha Soomaaliya muddo ka badan 25 sano oo dalku uu burbur iyo dawlad la'aan ku jiray. waxaana ka qayb galay munaasabada wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, madaxda safaaradda Djibouti ee Soomaaliya, mas'uuliyiinta shirkadda Air Djibouti, diblomaasiyiin iyo ganacsato Soomaaliyeed. safiirka dalka Djibouti Soomaaliya u fadhiya Aadan Xasan Aadan oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa sheegay nabadgelyada iyo hanaanka dawladeed ee dalka Soomaaliya ka jira inuu dhaliyay duulimaadyadii shirkadda Air Djibouti dib inuu uga bilowdo dalkan shaqadeedii. waa shirkad soo jirtay tan iyo 1963 dhinaca ay ka muuqato qiimeynta iyo ahmiyadda hawshatan maanta aan u fadhino daafurkeega inay Air Djibouti ku timaado Muqdisho waxa ay daba socotaa qaybna ka tahay siyaasadda dawladda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee dib u dhiska iyo nabadeynta Soomaaliya. gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabayre oo asna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay Soomaaliya horumarka dhanka nabadgelyada ah inay ka dhalisay in la helo maalgashi iyo ciriirigii duulimaadyada oo yaraada. waxaan isleeyahay waa fursad soo biirtay oo aad u qurux badan oo competitionka airlineska qayb ka ah aan rajaynayno inay dadkeena iyo shacabkeena wax badan ay ka tari doonto dhinaca qiimaha. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Cali Gacal Gaabow ayaa uga mahad celiyay dalka Djibouti isgarabtaaga markasta ay la hareer joogaan shacabka Soomaaliyeed. waxaa maaragtay farxad noo ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada imaatinka ay hawsha bilaabayso shirkadda Djibouti Airlines. wasiir dawliyaasha wasaaradaha gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cali Xagaa iyo Khalid Cumar Cali ayaa si wada jir ah u cabiray ahmiyadda ay xambaarsan tahay diyaaradda caalamiga ah ee Air Djibouti. maanta waa maalin farxadeed maadaama mudooyinkan dambe xukuumadda federaalka ay aad u dhiirigelinaysay maalgashiga dalka wasaaraddaanana ay tahay wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga. inta badan waa in la caddeeyaa fursadaha jira ama dalka ka jira. Air Djibouti maanshaheedu waa calaamad nabadeed sababta oo ah haddii aanay nabad jirin ma soo bateen diyaaradu Air Djibouti ma timaadeen. saas darteed dadka Soomaaliyeed iyo dadka bulshada caalamka ay rabta inay Soomaaliya oo wadan dihiina maal gashadaanba meel caalamka aan dhibaato ka jirin ma jirto laakiin garaafkii nabadda iyo horumarku wuu bilaabmay horena waa u socdaa. diyaaradda Air Djibouti ayaa la aasaasay 1963 waxayna duulimaadyo toos ah ka bilowday gudaha dalka Soomaaliya tan iyo burburkii dalku markii uu galay kadib. Sugaal Macalin Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.